filimkana maanta waa lacala haddii xayawaanada ay ahaan lahaayeen bini'aadam insaankan uu ahaan lahayna xayawaan taasna macnaheedana waxa ay tahay in xayawaanada ay ugaarsanayaan dadka ay ka faa'iideysanayaan ayna u isticmaali karaan qaab kasta ee doonaan hal mar waxaan arkaynaa nin silsilad bir ah ee qorta ugu xiranta oo ku xiran geedku dhex yaalana kahinta waxa uu isku dayayaan inuu birta iska furan intaysan qofna aysan u imaanin oo dhibaato u geysanin laakiin ma awoodaayo dhabarkiisana waxa ka muuqatayna jirdilka loo geysanayo qofkaasna waxa uu ku jiraana booska eeyga yariiska ee lagu xirana duurka kaas waliban aan lahayn wax saaxiibo ah wadada geeskeeda ayuuna ku xirnaa waxa uu sugayna saacad kasta in uu imaan doonaan qof bilaadan ah oo badbaadin doono bisna sibdar markii koowaad uu arkayna gaarigii uu yaqaanayna waa uu cabsana wax uu bilaabay inuu gadaal u laabto intuu carar ayuuna wax uu raadinayaan meel uu ku dhunto qofkaasna waxa uu noogu jiraana booska eeyga yariiska uu ku jirana markuu ku xiran yahayna duurka waa ogtiina mana jirtan ugu dambeyntiina xayawaanka wax kale uu sameyn karo oo aan ka ahayn inuu isdhiibo hal mar gaari kale ayaa agtiisa soo mara waxa uu bilaabayaan darawalka inuu soo fiiriyo qofka meesha ku xiran laakiin waa uu ka tagayaa ilaa markii dambe ninkii meesha ku xirnaa uu fiirinayna gaariga uu markale uu u soo laabtay waxaana ka soo deganayna xayawaan bahal u eg gaarigiisa qaybta dambe ayuu tagay calshay si ugu soo baxsadana bir uu ku jirana silsilada ku xirana ninkan intaas kadib anakana waxaan aadaynaa saddex qof oo duurka ku dhex dhuumanaysa oo walibana ka baqaysana nin ugaarsata ah oo xayawaan ah waxaan isku dayayaan inay ka baxsadaan ugaarsadahaas balse nasibdara hareerahooda ay waxay ka dareemayaan cabsi dhab ahaantiina waxa ay ku jireen booska sagaarada markay rabtaan inay ka baxsadaan qofka ugaarsatada ah ilaa markii dambe si ugu baxsanayeen ee ka arkayna wax bursanay inuu yahayna jir bilaadan oo lehna madaxa sigaarada waxuna awoodayaan inuu ugaarsado uu u qaatana kawaanka hilibka intaas kadibna anakana waxaa noo soo muuqanayna gaari weyn ee ka buuxaana dad bini'aadam ah oo u socdana warshada caanaha iyo hilibka gaarigana markuu warshada uu tagay uu istaagana waxa ay bilaabayaan dadkii ku dhex jirayn inay cabsadaan hal mar irid ayaa waxa u soo furayna nin jir bilaadan leh oo madaxiisana uu yahayna dibi anakana saacadaas waxaan ogaanaynaa xayawaankii gaariga watay ee uu istaagayna ninkii ku ag xirnayna duurka agtiisa inuu awoodayn inuu jarana silsiladii ku xirnayd jirkiisa kadibna uu soo xureeyo uu keenayna gurigiisa calshaan si uu u daaweeyo cabdixaliim calina waxa uu ogaanay inuu xayawaankan uu yahayna xayawaan wanaagsan kaas walibana raban inuu si fiican ula dhaqmana iyagan uu duurka uu ka soo waday ambal u laabana xoolihii bini'aadamka ahay kuwaas walibana la geeyina warshada hilibka iyo caanaha kuwaas walibana ka baqayana laxda kasta in la qali doono ilaa markii dambe mid ayaka ka mida uu diiday inuu dhaqaaqo meeshiisa ayuu istaagaya wab asagoo raban inuu baxsado waardiyihii ayaka ka mas-uulka ahay ee xayawaanka ahay ayana wax uu bilaabayo inuu ayaka uu garaaco qofkii xayawaan bini'aadamka ahayna markuu midaas uu arkan wax uu bilaabo inuu ka carar laakiin waxaa qabanaysana birtii meeshii taalay oo walibana koronto lahayd dhulka ayuuna ku dhacaya walibana asagoo jareynaya kimiyada korontada ee gashayna jirkiisa darteeda xayawaanadii kale ee soo haray oo bilaadanka ahayna waxay dareemaya inaysan jirin wadda ay ku baxsan karaan dibigii jirka bilaadanka lahayna waxa uu bilaabay qofkii korontada ku dhigtay inuu lugta uu ka qabto uu jiitane asagoo walibana raban inuu gowracdo ama uu maqaarka uu ka bixiyana ayadoo nool oo walibana sida xayawaanada ee bilaadanka ay ku sameeyaan saacadaasna waxaan arkaynaa ninkii matalayin eygii yariiska ahay kaas walibana joogana qol cidlo ah walibana asagoo cabsanayo daaqad ayuuna hal mar wax uu ka arkayna qofkii soo badbaaday inuu yahayna qof lehna jir bilaadan madax ayna leh kaas walibana la kulmaayna qof kale oo jir bilaadan leh oo madaxiisan uu yahayna dameer cabdixaliim calina markuu fiiriyana labiska uu watana dameerkana waxa uu fahmay inuu ka shaqeeyna kawaanka hilibka wax uuna saaxiibkiisa eeyga ah siinayaana balaq kaas waliba intuu soo qaado uu siinayna qofkii bilaadanka ahay ee eeyga noqday dhulka ayuuna ugu shubay qofkii bilaadanka ahayna wax uu bilaabay inuu u cunana sida eeyga baahan markii cunto loo keeno maxayna tan waa wadada lagu qoodiyeyna eeyaasha joogan caalamka xaqiiqiga ah markii cuntada uu dhamaystay shakhsiga ayaa wax uu bilaabay inuu gaarigiisa oo xamuulka ah soo saaro wax uuna usoo kaxaynayaana meel uun qofkii bilaadanka ahay ee ku jirayna booska eygana daaqad ayuu hal mar wax uu ka arkayaana qof jir bilaadan leh oo madaxiisa uu yahayna ido isla markiina gaariga ayaa istaagaya darawalkan waa uu soo degana gaariga ayuuna wax uu kasoo bixinayaana qofkii bilaadanka ahay silsilada qoorta ugu xirnayd ayuuna kasoo qabanay ilaa marka dambe uu ka tuurana meel u eegna xabsi meesha ayuuna ku xiraya waa uuna ugu tegaya qofkii bilaadankan meesha ayuu ku jiraya saacado badan ilaa marka dambe uu ka arkayna qof jir bilaadan leh madaxiisan uu yahayna dibi waa uu kasoo bixinaya meesha qoorta ayuuna kasoo qaban asagoo raban inuu geeyeyna meel kale kii bilaadanka ahayna waa uu cabsanaya mana uusan awoodi karin inuu baxsado wax uuna bilaabay inuu dhulka uu jiifto balse dibigiina ma kala jeclaanaya wax uuna bilaabay inuu silsilada uu kasii jeedana qoortiisa gacanta ayuuna wax uu ku watayna faynis u ifinaysana mugdiga ay ku jiraan waxaan usoo laabanaynaa xayawaanadii bilaadanka ahay ee ku jirayna warshada hilibka iyo caanaha kuwaas walibana rabayn inay xerada ay ka baxsadaan laakiinse ma awoodi karin waxayna ka baqaayeen inay ku dhacdana wixii saaxiibkooda ku dhacdayna markuu qabsadayna birta ee korontada ku dhagtay bismido ayka ka mid ah oo jirkeedana uu yaryahay ayaa waxay bilaabaysaana birta hoosteed inay kasoo baxdo ugu dambeyntiina waa ay guulaysanaysaa isla markii ayna meesha ka cararaysaa waxayna bilaabaysaan inay ka dhuumatana dibigii kaasoo walibana rabayn inuu qashto asagana markuu xayawaanadiisa uu u tagana ma awoodayin inuu ogaadan inay qof ay ka maqan tahay iyo in kale gacanta ayuuna wax uu ku watayna uul koronto leh wax uuna bilaab inuu ku dhajiyeyna dhammaan intii ku jirtayna xerada wax uuna u kaxaynayaan xoolo qalka waana sida ku dhacdana lo-yaasha oo dabiiciga ah sida in la gooraaco oo maqaarka laga siibo gabartiina waxay isku dayaysaan inay ka baxdaan iridda laakiinse ma awoodaysaan inay furto saacadaasna dibiga shaqar ayuu wax uu ka maqlayaan albaabka dhinaciisa maanta kaabageliyaha muuqaalkan oo ku dhan electronics hoyga agabya
tayada guryaha taasoo idiin heesana Keywood Air Fryer. qalabkana waxa uu ka saacidayaan inaad karsatidna raashin caafimaad leh adigoo shiilanaysid saliid la'aan ama saliid aad u yar. waxuuna halkii markuu qaadayaan 3.8 litir iyo 1.7 kiilo shaashad yar oo ku hagaysa ayuuna leeyahay. korontadiisana waa 1500 oo watt haddaba booqo ku dhan xarunteeda Taleex ama Bakaaraha ama wac 202. haddii aad ka socotidna khulaasadan qiimo dhimis fiican ay ku sameyn doonaan Apple ku soo laabana filimkeena. waa uu soo jeegareynay caashin si uu ogaadeen inaysan jirin xayawaan ka baxsanaya asaga. saacadaasna gabartii ku jirtayna doorka lo'dana waxay bilaabaysan inay ka dhuumato si aan loo arkin. dibigiina wax uu bilaabay inuu daba socdo ilaa marka dambe uu ka maqlayna shaqarteedu waa uuna bursanaya. ugu dambeyntiina wax uu tagayaan ayadu ag taagana jir bilaadan oo lehna madaxa faraska waba ayadu uu ka difaacay asaga. dameerkii dibigana waa is-ag istaagsananayaan waba ay ka wada sheekaysana waxayna bilaabayaan inay wada hadlaan. intaas kadibna faraska wax uu gacanta dibiga ka soo baxsanayaan u sheeg korontada waa uuna jibinaya. wax uuna ku dhahay waa inay xayawaanada u naxariisata oo waliba ku cadaabina nolosha. intaas kadibna gabarta ayuu kaxina wax uuna ka bixinayaan xarunta xoolo qalka. intaysan albaabka aysan gaarin hal mar midi ayuu soo baxsanaya qoorta ayuuna ka jiraa. faraskana wax uu ka soo horjeeday in xayawaanada koronto lagu dilo maqaarkana laga siibo ayadoo aan la gowracin. ambal u laaban ninkii bilaadanka ahay ee soo qabsadeen eeyaasha. silsiladii qoorta ugu xirneed ayayna waxay ugu xirayaan dhulka calshan si uusan uga baxsan xerada. ninkana marka hortiisa uu fiirin wax uu arkayna tiro badan oo jir bilaadan madax ayna leh kuwaas walibana lacag dhiganayana si ay u daawadaan ciyaarta. hal mar waxaa imaanayana jir bilaadan oo lehna madax dibi wax uuna bilaabay inuu meesha uu keenana ii kale oo bilaadan ah. ninkii kale ayayna hortiisa ku xiray calshan si ay isku dagaalaan. halkana waa u jeediina markaana sidoo isku bedelayna eeyaasha ayaa waxay daawanayaan bilaadanka isdagaalaya bedelkii eeyaasha la daawo jiray. labadii ninna waa isdagaalay adigana muuqaalka ay laag saaraysa eeyaashiina waxay bilaabayaan inay daawadaan. dibigana markuu arkayna ninkii uu keensaday oo bedelka iyagu ku jirayn inuu cabsanayo wax uu bilaabay inuu xanaaqo uu qoorta uu ka jaro. faraskiina ninkii kale ee soo hara ayuu soo kaxisana wax uuna ku xirayaan xero. intaas kadibna tuba ayuu soo qaadana wax uuna bilaabayaan iyagiisa oo bilaadanka ahayn inuu ku waraabiyo si calshan oo dhiiga ugu tiro. silsiladaha ayuuna ka furay albaabka ayuuna kor kaga soo xiraya waa uuna ka tagayaa. saacadaasna ninkii bilaadanka ahayna wax uu rabayn inuu meesha uu ka baxsado wax uuna bilaabay inuu albaabka uu ka soo baxay ayadoo aan la arkaynin. balse nasiib xumana dibigii ayaa arkayna asagoo baxsana wax uuna u yeerayaan sigaaradii ugaarsatada ahayd taasoo welibana shaqadeeda ahayd inay soo qabatana bilaadanka ee welibana soo ugaarsato. sigaaradana waxa ay bilaabaysaan inay bursatana qofkii bilaadanka ahay xaalka ayaana hal mar isgedina waxaan arkaynaa bilaadanka oo bursanayana sigaarada calshan si uu ugaarsado. filimkana hadafkiisana waa muujinta xayawaanada rafaadka ay ku hayaan bilaadanka. marmarka qaarna waxay u ugaarsadaan baashaal iyo dheel. eeyaasha iyo xayawaanada qaar iyo diiqyaashana waxay bilaabaan inay isku diraan calshan si ay ugu raaxaystaan daawashadooda. taasna ugu dambeyntiina waxay horseedaan mid ayaga kamid ah inuu dhinto. mid kalena wadamada qaarna bedelkii xayawaanka ay gowraci lahaayeen waxa ay madax kaga dhufanayaan bir oo koronto leh. taasna waa si naxariis dara ah oo ka soo horjeedana shareecada islaamka. nabigeena suuban Muhammad calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay ilaahay wax kasta waxa uu amray in loo ixsaan falo. wax uuna dhahayna haddii aad gowracaysaan xayawaankana wanaajiyana gowracitaankiisa. midkiina mididiisana si fiican ha u soo afeeyo hana u raaxayna xayawaanka uu gowracayo. filimkana waxaa idiin qora oo codeeyeen Cabdixaliim Cali waan aniga waxaana codka idiin habeeyeen Khalid Cali waxaan idiin aadid gareeyeen C77. han iloobin inaad subscribe asaaratidna khulaasada filma si ay ku soo gaaraan muuqaalada xigo. inta muuqaalkan iyo muuqaalada xiga aska arki doonana waa Cabdixaliim Cali oo idin lehna maca salaama.